maanta oo ay July tahay saddexda waxa ay 30 sano laga jooga markii markab dagaal uu Mareykanku leeyahay uu soo riday diyaaradii Iran ee 655 markabka ayaa ku sugnaa gacanka Persia wuxuuna diyaaradda oo rakaab ahayd ay saarnaayeen ku qalday in diyaarad dagaal oo F-14 ay tahay wuxuuna ku riday gantaal dhammaan dadkii saarnaa way dhinteen mid ka mid ah raggii saarnaa markabkaasi ayaa hadda ka hadlaya sida ay wax u dhaceen. It was a tragedy. We did shoot down. waxay ahayd masiibo waxaan ridnay diyaarad weli waxay ka mid tahay waxyaabaha aan rumaysnahay in ay ahayd in aysan dhicin. The mood in the Gulf was very tense. xaaladda gacanka aad bay u kacsanayd Iiraan iyo Ciraaq dagaal ayaa u dhaxeeyay ciidanka Mareykanka maraakiibta shidaalka ayay difaacayeen ee ka imanayay Kuwait kooxda aniga aan weheliyay ee muuqaalkana xilligaasi oo dhan way duubayeen kadib waxaan raacay markabkii ciidamada Aegis Cruiser intii aan ku soconnay Bahrain waxaan dagaal la galnay doomaha dheereeye ee Iiraan. About 5 minutes. qiyaastii 5 daqiiqo kadib waxay sheegeen inuu jiro baltilmaameed ku haray Bandar Abbas saldhigga cirka ee Iiraan. marka diyaaraddii kacaysa waxaa loo gartay halis hawada ah waxay moodeen in ay yihiin ciidamada cirka ee Iiraan F-14 Tomcat balse xaqiiqdii diyaaraddu waxay ahayd duulimaadka 655 diyaarad rakaaba. Here the crew is. ciidamadu waxay sugayeen duulaan kale in ay la kulmaan diyaaraddana ay soo kacdo waxaan aaminsanahay in mid ka mid ah saraakiisha inaan weydiiyey maxaan samaynaa wuxuu yidhi jawaab gantaal ayaad arki doontaa. waxaan u tagay khabiirka howlgallada oo daawanayay wuxuu eegayay gantaalka oo uu arki karay ilaa uu raadaarka ka baxo wuxuuna arkayay markii uu ku dhacay bartilmaameedka. laakiin 15 ilaa 20 daqiiqo kadib waxay ogaadeen in diyaarad la la'yahay markaas baa la amakaagay diyaarad maqan annaga diyaarad ma aynan ridin waxaan soo ridnay mid dagaal dad badan baa la raadinayay lama aamini karo taas maysan ahayn inay dhacdo halkaas uma aanan joogin inaan sidaas samayn 290 shacaba ayaa ku dhintay tiradaas 66 ka mid ah carruur bay ahaayeen waan ka murugooday qoysaska dadka ku waayay waxaan jeclaa inaysan dhicin laakiin goob joog baan u noqday. But I was there.